إيمانك شيء قرا لقو قبو باين الرحمن كقول كيف ما صور مقايبة قول كيف فردوسية شنو قورسن وليجية قانقار هدي آتيهين قيرا لقو بيري وحيجينا قيمها كسوغن قورسك إلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديقودا نبرتي يسيدا وحلوقيحو أو تفسير كوال لقو قيافر قلوبتينا قياما حقي سادوان لوق القلياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم ما بعد وسورة البقرة بلو جدي بين مرينا إن شاء الله انتهينا بلابين وحين برارج لهين حاجة تفاسير تدتكوا أكل الدوينهين قفوا اسكبلو مركاو بهاي تفاسير تكوكوبا سيدا صفة تفاسير مختصر ابن كثير يا تفسير الجلالين أيسر التفاسير كتبتها كوكوبا مركا إريادا أصو أرورين يسقفك أمو شرحيسة قفك طالب كان نحوها يقالنا يسقوا كفا إذا سنكر جمل كأيو فتح القدير كأي كتب تاس انتو بنوايا لا نوال هلي كرايا وفليا كل آداب توحى كم إذا إن درس كقفك ولك عشرة عدي وقع قنران ووقت وكعلية وصماية وقت قاسو قفك وسوفا إلى سنة وحي وكلا إلا وأما وقرن واي كعلين تشوق الله يقانا مرة عشرة مراجعة وحي لقرن وايو قرال بيدن كسو قري سيهبين كأربعة وكلا أينو مركا وشاقنا وحي دي طلبادو أي ويربا هذان الله افتيميو انت واحد سيو هليا دي درسكو أما القرآن الكريم كان لا نولاده وحياة القلوب وقلبك على قلنا ولينيا وقفك هؤلاء هي أعماشي مالنتي وكتر هي تعبك أيا وكل أغلقيا أما وكعليا وكعذاذيا استادرات هاتو قفك وايو درس وقاتو أفري لباتنك الساعدات وحلقا يابا إنو الشيطان كله دركو كواحينو قد شيدنا التفسير كوينو فهم إنو وحاسيوه ليا كردقنكي إيو إنو مارتي الروح دكو قبوشينو سورة البقرة وحينو الرئيسين دونا إن شاء الله سورة دان أحاديث كسا أروري فضل غيره oo suuradan fadliga ay leedahay inoo cadcadaynayo inoo fasiraya taasoo aynu ku garan karayno miisaanka weyn ee suuradan ay leedahay iyo muhiimadeeda xogaa baynu yara wadi doonaa si qofku u qiimeeyo qiimaha ay mudan tahay suuratul baqara iyo ka faa'iideysigeeda xadiis saxiix muslim ku sugan abi hurayra warinayo nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam la taj'aluu buyutakum maqaabir فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان على معنى الحديث كوريه نحبالها كدغنا waxa ku akhridaan suuratul baqara kuriga suuratul baqara lagu akhriyo shaydaanku ka carara inagana waxaynu doonaynaa waa inuu shaydaanku inaga cararo malaa'igtuna way timaadaa sidaynu arki doono shaydaankuna uu ka carara meel malagimina naxariis baa taala meel shaydaanimina balaaya taala nabigu calayhi salaatu wasalaam حديث كلام صحيح وحا وكوري وإسلام مسلم كسوغان قرآن كأخريا مالنت قيامها وإيمانيا إساقو أو إرقينيا قفكي إهل كوها أما كل نقب جري مالنت قيامها ولما وحا آخرين الزهراوين لولا بلعنا بضن قروح بضن قيمها له وسورة آل عمران هي سورة البقرة maalinta qiyaamaha way imanayaan labada suuradood iyagoo quraanka u horeeyo daruuraha kala ah waxay u doodayaan qofkii akhriij jiray ku cibaadeysan jiray iqra'ul baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-badala waliba suuratul baqara buu nabigu gaar si dardaarmo akhriyay qaadashadeeda oo ah ku celcelinteeda iyo badsashadeedu waa barako ka tagideeduna waa murugo سحر لا ياشونا مكران
siduu nabigu cadeeyay calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo albani uu xasan ku tilmaamayo saxiix ibnu xibbaan ku sugan waxa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina likulli shayin salaaman wa salaamu lqur'aani suuratu lbaqara shay waliba wuxuu leeyahay kurus geelu waa inaga aragnaa kurus buu leeyahay dadku aada u daneeya macaankiisa iyo wanaaggiisa qur-aanka kuruskiisu waa suuratu lbaqara qofka suuratu lbaqara habeen akhriya gurigiisa ku akhriya lam yadkhul ishayطaanu baytahu 3 layaal gurigiisa shaydaanku ma soo galayo 3 habeen buu nabigu saddex haddana ku celi weligaaba wadan faa'iidooyinka suuradda ay ka mid tahay xadiid kale ibn mas'uud uu warinayo oo isagana bukhaari ku sugan nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam qofka akhriya labada aayadood ee u dambeeya suuratu lbaqara aamana rasuulu laga bilaabo habeen akhriya ka fataahu way ku filan yihiin marxay kaga filan yihiin nabigu ma fasirin calayhi salaatu wasalaam waxay kaga filan yihiin shaydaankii bay kaga filan yihiin sida horeba uu u soo xusay nabigu waxaa culimada qaarkoodna ay leeyihiin wardigii habeenkiibaabay ugu filaanayaan iyo qiyaamu leylkii suuraddan iyada ah nabigu markuu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo saxiixa waxa uu yihi qofka akhriya aayad kursida salaad walba gadaasheeda ama xagga dambe ka akhriya jannada waxaa ka hor jooga uun inuu dhinto markuu dhinto horay buu jannada ka gelayaa bukhaari waxaa ku sugan oo uu caddaynaya xadiidka usayd ibnu xudayr uu warinaya radia allaahu canhu inuu nebigu tilmaamay suuraddan marka la akhriyayo inay naxariis ilaahayna soo degayso malaa'igtuna soo degayso oy dhegaysanayso akhrinteeda xadiidku waa saxiix weeye usayd ibnu xudayr baa warinaya wuxuu yihi habeen habeenada ka mid ah anigoo cibaadaysanaya inankaygii yaraaye yaxyana uu ag hurdo ayaan suuratu lbaqara akhriyey markaan in yar akhriyey faras agtayda ku xidhnaa faraskaygii ayaa dhaqaaqoo wareegay waan yaro joojiyey haddana waan ku celiyo wuu wareegay oo xoog buu wareegay wuu dhaqdhaqaaqayaa sidii wax didayoo kale mar saddexaad baan ku celiyey oo markuu dhaqaaqay baan salaaddii ka baxay buu halkaasaan ku joojiyey xagga saraan eegoo waxaan arkay dhulkii oo wada iftiimaya daruuro tirigyo iftiimaya ay ka muuqanayaan nabigaan u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulkuna ii sheegay inay ahaayeen waxa uu arkay daruuraha iyo iftiinkaas malaa'igtii ilaahay marka haddaad ku sii wadi lahayd waa la arki lahaa subaxdii malaa'igta iyadoo dadkaba u muuqanaysa marka malaa'igta iyo naxariistuba suuratulbaqara halka lagu akhriyayo ayaa ay ku soo degaysaa siduu nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo xasan tirmidi uu ku tilmaamayo ibnu xibbaan iyo khusaymana saxiixooda ay ku soo saareen waxa uu sheegayaa suuraddan qofka yaqaanaa inuu madax noqonayo ama hormuud madaxtinimada waxyaabaha cv-ga lagu mutaysto ayaa uu ka mid yahay suuratulbaqara inuu qofku yaqaano ama xifdisan yahayba col buu anba bixinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam duulimaada ama koox sariyo ah markaa wuu warwaraystayoo nin waliba inta uu qur-aan yaqaanaa buu weydiiyey intaasaan aqaana nin dhallinyaraabaa wuxu uhi intaana waan aqaanaa suuratulbaqarana waan aqaanaa marka rasuulku waxau ihi sala allahu calayhi wasalam ma suuratulbaqara taqaanaa dhaqaaji anta amiiruhu adaa colka ka madaxahe dhaqaaji buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka taasina wuxuuna tilmaamaysaa un qiimaha uu leeyahay qofka suuraddan yaqaana fadhab fa anta amiiruhum buu rasuulku yidhi xadiidka sideedaad waxa uu sheegayaa suuraddani waxay ahayd afgarasho weyn oo quluubta mu'miniinta lagu dhiriyo markay xaaladdu adkaato iyo afgarasho cajiibahoo nebigii asxaabtiisa ka dhexaysay bay ahayd halka innagu aynu ka nidhaahno tollaayadii asxaabtii rasuulka ahayd suuraddani xadiidku waa saxiix weeye axmed iyo bayhaqi iyo muslimba waa ku sugan yahay inkastoo lafdiga uu leeyahay imaam axmed raximahullah maalintii xunayna asxaabtu ay jabeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la hadlay cabaas ibnu cabdilmualib oo adeerkiia wuxuu uhi cabaasow dhawaaq raggii yaacay u yeedh maxaa la odhanayaa yaa asxaaba asamura
yaa asxaaba suurati albaqara saasaa loogu yeedhaya war qoladii geedka nebiga kula heshiiyow xaggee u yaacdeen id yubaayicuunaka taxta ashajara waa maalintii adkayde sanadii lixaad xudaybiye heshiiskii lagu galay ee muslimiintu ay nebiga gacan qaadeen in wixii uu amro ay yeelaanoo maka la galo oo ilaa dhimasho loo diyaargaroobo heshiiskaa raggii galay xaggee u yaaceen wayaa asxaaba suurati albaqara baqaro raggii yaqaanay ama ehelkaba u ahaa ee loogu talagalay inay ku dhaqmaan xaggay qabteen waxaana weeyaan de waa suuradda sida cajiibkaa usoo bandhigta jihaadka ninkii axkaamta jihaadka ku yaqaanay iyo baqari siday jihaadka uga waranto xagguu maray sidoo kale khaalid ibnu waliid markii uu colka horkacayay la dagaalamayay ninkii nebinimada sheegtay ee la odhan jiray musaylimat lkadaab yowma alyamaama asxaabtii iyo muslimiintii halkaa marayay aad baa loo laayay markii dambe dib loo abaabulayay isaguna yeedhmadaasoo kale ayaa uu ku baaqay oo ugu yeedhay ansaartii iyo muhaajiriintiibaa waxay isugu yeedhayaan yaa asxaaba suurati albaqara xataa fataxa allaahu calayhim yeedhmadaasaa oo innaga halkaynu tollaaya ka nidhaahno iyaga tollaayadu iyo asxaaba suurati albaqara bay ahayd waa la soo noqday labada jeerba markaa nebigu cabaas yidhi yeedh iyo markuu yihi khaalidi loo yeedho colkaba labada jeerba waxay u soo laabteen si cajiib ahoo deg deg ah oo u jawaabeen waxa uu lahaa imaamkaa la ydhaha khaalid bin macdaan suuraddan wuxuu ku magacaabi jiray fustaanu lqur'aan waa taambuugga qur'aanka qur-aanka o dhan bay ku dul qotontaa waxay ka hadlayso qur-aanka o dhan wuxuu ka hadlayo weeye waa barakadeeda iyo weynaanteeda iyo axkaamteeda aada u badan daraaddeed waxa uu soo naqilaa ama xusaa imaamu maalik raximah ullah kitaabkiisa muwadaca cabdilaahi bnu cumar inuu baranayay suuraddan iyo fiqigeeda iyo axkaamteeda 8 sannadood riwaayo kale waxay tilmaamaysaa inkastoo maalig aanay ku sugnayn taariikhda cumar 12 sannadood buu baqara dul fadhiyey haddaad adigu faas tahay ood hore u soo fadhido oo doonayso bil ama laba inaad kaga gudubto ama aad leedahay war muu inaga bilaabo ordhaca intuu iska daayo sheekh cumar binu khadaab 12 sano suuradan dul fadhiya fiqigeeda iyo faahfaahinteeda iyo dhuuxideeda inankiisiina waxa uu dul fadhiya cabdilaahi bnu cumar 8 sannadood labadoodana waxay ka mid ahaayeen asxaabta ugu badan xagga cilmiga qur-aanka iyo sunnadaba aada u yaqaan marka waxay nooga baahan tahay faham iyo dhugasho badan oo aada iyo aada qofka muslimka ahi ugu dadaalo suuraddan waxay leedahay khasaa'is iyo waxyaabo ay suuradaha kale kala gooni tahay waxa kowka ah waa adwal suura fi lqur'aan suuradda qur-aanka ugu dheer wey marka la isu geeyo saynu ogsoonahay oo dee waa 2 jis iyo dheeraad ama 5 xisbi wax ku dhoweeye suuraddu waxaa ku jirta aayadda ugu dheer aayadaha qur-aanka oo safxad ama hal bog ah aayatu dayn suuradda waxaa ku jirta oo kale sida uu yidhaahdo ibnu kathiir raximah ullah waa suuradda ugu axkaam badan axkaamta waynu xusi doonaaye qofka muslimka ay u baahan yahay ama mujtamaca muslimka ama adduunyaduba u baahan tahay qawaaniinta iyo nidaamka suuradda koobsantay ee ugu badan weeye weliba aayadaha axkaamta ka warrama marka waxa uu leeyahay waxaa ku jira 1000 xukmin wa 1000 amrin wa 1000 nahyin wa 1000 khabar kun amar iyo kun nahyi iyo kun xukum iyo kun khabar waa raggii dhuuxaya u dhabbagalayba saa uga soo warramay suuradda saynu soo arkaynay waxaa ku sugan suuradda aayaddii aynu imika soo marayne aamana rasuul ilaa intaa labada aayadood u dambeeya oo ah dee dheeraadu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam iyo inay qofka ku filan yihiin waxaa ku jirta suuradda aayaddii ugu dambeysay ee qur-aanka kariimka ah soo degtay wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah aakhiru aaya nasalat min alqur'aan waa sida qowlka raajixa fii culuumi alqur'aan marka la eego suuraddu magacyo dhowray leedahay suuratu lbaqara waa asuura alatii dukira fiiha qisatu lbaqara qisadii saca ayaa lagu dhex sheegay sanaamu lqur'aanna waa la yidhaha dirwatu lqur'aanna waa la yidhaahdaa magacyadeeday ka mid yihiin kuwaas oo xadiidkaa taana caddeeyey aayadaheedu waa 286 aayadood
kelmadaha suuraddu ku jira ee aayaadkaasi ay ka kooban yihiin waa 6121 kelmadood xarfuhuna waa 25613 xaraf rag baa sidaa xafiduu fi sutuuri wa fi suduur qur-aanka saasaa laabtana loogu hayaa kitaabkana loogu hayaa la ilaashanaya marka mid kastoo gaali hadduu yimaado doona inuu wax ka bedelo dee xarfiyaaba raggan u tirsanba wax la bedeli karaaba ma jiro marka haddii aad ku dhufato 10 ama 0 ku darto 25,000 dee waxay noqonaysaa 250,000 6,130 ajri ayaad leedahay 250,000 iyo siyaado ajri baad leedahay haddaad hal mar dhammayso waxaana laga yaabaa qofku saacad inuu ku dhammayn karo hadduu suuraddan akhriyo marka suuraddan intaasoo dhan baad ku helaysa faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid a sidaynu soo arkaynay dee inay sixirka ka tahay wiqaayo iyo cilaaj labadaba sixirka iyo shaydaanka wiqaayo way ka tahay oo ilaahay baa kaaga difaacaya oo culimada cilaajku sida saxda ah wuxuu daweeyaa waxyaabaha ay culayska ku saaraan sixirka iyo jinka iyo isha suuratul baqara kowka ah ee nabiga cadeeyay calayhi salaatu wasalaam marka cilaaj way tahay oo qofkii waxyaabahaasi cudurrada ruuxdu ay soo gaadhaan waa lagu daaweeyaa ka hortagiina waa saas oo kale waa loo isticmaalaa sidaa daraaddeed bay habboonta gurigii in lagu akhriyo siiba arooska guriga cusub xaafadaha qofku hadduu kari waayo inuu akhriyana waa inuu cajalada ku ridaayo ay iska siraadaata cajaladu siiba waqtiyada la aamusan yahay iyo habeenkii marka la seexdo waxyaabaha lataa'ifkeeda waxaa ka mid ah suuradda bartamaheeda waxa ku beegan ama dhexdhexaadkeeda aayadda ka warramaysa muslimka dhexdhexaadkiisa wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhadaa cala annaas ummaddani waa ummad dhexdhexaad ah oo ummadaha gaabiyeyna kuma jirto kuwa xadgudbayna kuma jirto aayaddaa dhexdhexaadka sheegaysa dhexdhexaadkeeda ku beegan 142 meelahaasay noqonaysaa dee kala barhkuna 43 meelahaasaabuu haaba intaa haddii aynu kaga soo gudubno suuraddu khasaa'iskeeda iyo fadligeeda muxtawayaadkeeda aynu wax ka taaban lahayd ama waxyaabaha ay suuratulbaqara koobsatay suuraddani waxay koobsatay sharciga dadku ay u baahan yihiin intay adduunyadan joogaan ee aanay ka maarmi karaynin waajibna ku ah daruurina u ahee baahidooduba ay ku xidhantay sida caqiido wanaagsan cibaado wanaagsan cuud xalaala ama xoolo wanaagsan oo qofkii uu isticmaalo u dhaqdo iyo qoys wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan iyo siyaasad wanaagsan iyo xoog military oo wanaagsan intaasoo dhan bay ka warramaysa marka waxay aada ugu baxday suuraddu nidaamka aynu soo sheegnay oo si mufasala ay u soo bandhigi doonto guud ahaanna marka la isku celceliyo waa caqiidada noocyadeedii kala duwanaayo noloshii addoomaha ilaahay uu farayo inay cibaado ka wada dhigaan dhinac walba intaa aynu soo sheegnay markaa suuraddu waxyaabahay soo bandhigtay bay ka mid tahay nidaamka caqaa'idka cibaadaadka mucaamalaadka akhlaaqda arrimaha qoyska siiba ood arki doonto furiinkii iyo cadadbixii iyo ilmihii la jaqsiinaya iyo xuquuqa zawjiya dadka la guursan kara iyo dadkaan la guursan karin suuraddu waxay aada uga warrantay taariikhdii bani aadamkani uu ka soo bilaabmay inaanu iska abuurmin daayeerna ka imanin sida gaaladu ay ku doodaan laakiin ilaahay uu abuuray subxaana wa tacaala xikmadna uga jeeday marka waa inaga arki doonnaa nebi aadam oo ilaahay abuuray oo abuurkiisana malaa'igta uu sii ogeysiiyey iyo khaliifada laga dhigay waa suuraddu waxay tilmaamaysaa inta ifkan la jooga in dagaal lagu jirayo dee ibliis baaba taaganba oo aabbaheen weerar ku qaaday marka ha isdhiganin ninkii isaga ahaa ee aabbihii inoogu weynaa dagaalka la galee xaasidee ku kibray weli uu taagan yahay isaga iyo faraciisa suuraddu waxay ka warrantay soo bandhigtay waxaan la yidhaahdaa adduunyadu waxa loo qofku u baahan yahay inuu khibrad helo waayo aragnimo hore oo dadka qaarkood ay soo mareen maxaa nolosha laga ilaalinayaa maxaase nolosha inta la qaadanayo lagu dadaalayaa labadaaba waxa kaa sixi kara maadigii oo lagu sharxo saa daraaddeed shayga la yidhaahdo taariikhda
waxaa la yidhahdaa taariikhdu wax sahlan maaha taariikhda hore waxaa lagu saxaa mustaqbalka waxaa la yidhahdaa taariikhu mir'aat almustaqbalu mir'aat almaadi mir'aatu lmustaqbal waktiga hore tegay waa muraayadda waktiga soo socda marka aad buu qur-aanku uga warramaa taariikhda suuraddani waa suuradda ugu badane ka warramaysa taariikhda reer banu israa'iil ama nimanka yuhuudda la yidhahdo alyahuudu fi lqur'aan yuhuuddu muuqaalkay leeyihiin qur-aanka dhexdiisa suuradda ugu cajiibsana soo bandhigaysa weeye yuhuudda aada arkaysa taariikhdooda aynu hayno maantana aynu arkayno adduunyaduna khadiyaanka ka taagan tahay suuraddaasaad sawirkooda ka arki karaysa weliba wax cajiiba iyagoo kuwii taariikhdan lahaa ay tegeen ayaa markuu ilaahay la hadlayo kuwii nebi maxamed wakhtigiisii joogay buu la hadlayay iyagoo tallaabooyin waxyaabaha laga warramayaana wixii hore ay yihiin leanna mar walba yuhuuddu way wada socdaan kuwii hore iyo kuwii dambe marka khatarta ay leeyihiin iyo ceebahooda in lagu baraarugo iyo in la iska ilaaliyo awgeed suuraddu aad bay uga warrantay 3 meelood oo meel wax ka badan suuradda ayaa soo bandhigaya laga bilaabay yaa bani israa'iil adkuruu nicmatii allatii ancamtu calaykum ilaa laga gaadho waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahum ilaa halkaa laga gaadho intaa qisadoodaa soconaysa suuraddu waxaynu arki doonaa qisooyin bay xagga dambe kusoo bandhigaysaa ilaa 4-5 qiso oo iyaguna dhammaantood tilmaamaya awoodda ilaahay iyo inuu ilaahay aakhiro dadka soo noolaynayo oo dad badani nolosha aakhiro iyo diidmada ay aakhiro diideen daliilkii sugayay aakhiro iyo jiritaankeeda dhowr qisoo soo bandhigaya qisadii nebi ibraahim iyo xayawaankii ilaahay uu nooleynaya markaa dee ilaahay isha u saaray qisadii cusayr taaluut iyo qisadiisa qisaskaasoo dhammina xikmaddaasi xambaarsan yihin dhaqaalaha bani aadamku wax soo saarkiisa siduu u soo saari karaa inuu xalaal noqdo oo ribada ka ilaaliyo iyo wixii uu haystay meelaha ugu fiican ee uu ku bixin karo iyo aadaabta uu ku bixin karo iyo wixii la kala amahanayay heshiisyadii la gelayay ballamaha laga bilaabo aayadaha infaaqa iyo deeqda ka warramaya aayaatu riba aayatu dayn intaasoo dhammi dhaqaalaha saxan ayay suuradda ka warrami doonaan muuminiinta ama awliyada ilaahay ammaanta leh iyo astaamahooda qaaliga ah iyo inaynu ka mid noqonno laynagu dhiiri gelinayo iyo inuu ilaahay towbadiisa diyaar inoola yahay labada aayadooda u dambeeya ayaa ka warrami doona adduunkan lagu waari maayo warunbaa ka hadhaye inaynu iska diyaargarowno mid aakhiro la idhaa iyo qiyaamana u dambeeyo ayaa ilaahay u xusi doonaa wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah marnaba qiyaamaha la ilaawin xalla waxa aynu islaba rogayno aynu soconayno aynu dhisayno aynu dhaqayno waxa ka dambeeya un su-aal iyo xisaab suuraddu arrimaha ay soo bandhigtay kuwaas weeye tafsiirkeeduna halkaasuu inooga sii socon doonaa insha allah wallahu subxaanahu watacaala aclam يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان